السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barkale iyo mid kamida barnaamijyada aan idinku talagalnay. waa barnaamijkeeni habeenimo Arbaca oo Khamiis ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 3 September sanadka 2025. haddaba qodobada caawa barnaamijkan idinku soo gudbinayo waxa kamid noqon doona abaanduulaha ciidanka Israa'iil ayaa si rasmi ah caawa ugu dhawaaqay inuu bilowday dagaalkii ay ku qabsanayeen Gaza waxaana loogu magac daray howlgalkaas Gadcood 2 sida uu yiri. isla markiiba waxaa warbixin soo saaray ururka Al-Qassam garabka militariga ee Hamas iyaguna waxay ku dhawaaqeen howlgalka ay iskaga caabinayaan howlgalkaas waxayna ugu magac dareen howlgalkii ushii Nabi Muuse alayhi salatu wasalaam. walaysaya tafaasiil ku saabsan sheekadaas ayaynu barnaamijka caawa ku faahfaahinayna. Netanyahu oo u hanjabay mudaharaadayaashii maanta gurigiisii gubay iyo sidoo kale Macron oo la sheegay codsi uu u gudbistay Netanyahu in laga soo diiday. haddaba sidee wuxuu jiraan xaaladda kulanti wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. haddaba caawa barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa labada dhinac Israa'iil ciidankeeda iyo Hamas ayaa hawada isu mariyay hadallo qatara caawa. Israa'iil waxay sheegeen inuu dagaalkii caawa la ogolaaday oo la bilaabayo sidii loo qabsan lahaa Gaza. Al-Qassamna waxay ku dhawaaqday howlgalkii ay kaga hortagi lahayd. sheeko la yaab leh caawa warbaahinta labada dhinac isu mariyeen ayaan idin soo gudbinayaa. haddaba marka waxaan idin tusinayaa marka ugu horeysa abaanduulaha ciidanka Israa'iil ninka la yiraahdo Zamir ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay bilaabatay howlgalkii loogu magac daray Gadcood 2 kaasoo lagu qabsanayo si dhameystiran magaalada Gaza. ninkan abaanduulaha wixii culays la soo saaraya hadda ka hor maalin horena maray dhaheen waa bilowday haddana nagtaa laga soo saaray waa tay dib u gurasho sameeyeen. haddana caawa wuxuu ku dhawaaqay howlgalkii Gadcood 2 la yiraahdo oo lagu qabsanayo Gaza kulligeed inay markaa iyagu ay gacanta ay maanta bilaabeen. ninkan marka culays badan la saaray waa tii barnaamijka isaaka aan kaga hadlayay inaa ogeydeen inaad xusuusataan aan u malaynayaa lalahaa haddii meesha la qabsan waayo la weerari waayo mas-uuliyadeeda adaa qaadaya adiga iyo saraakiisha dowladdu halkaasay ka qaylinaysaa. nimankan siyaasiyiinta mayalka adag meeshaasay ka qaylinaya nimanka dagaalka inay soo aadaan la rabo nimankan waayo. maalmahan dhan marka waxay wadeen juqajuqays baabuur wax laga soo buuxiya qarax soo geli nagtaa la iska saaraa meeshaan la isma cafin doonaa la leeyahay. bas ninkaa markuu hawshaa ku dhawaaqay oo xaalku uu halkaa marayo ayaa waxaa iyana war soo saaray caawa Al-Qassam. jawaabtiisa waa loo hayaa. hadduu soo galo nagtaa laga saaraa. hadduu miidiyaha howlgalkayga waxaa leedahay Gadcood 2 waa af yahuudeedka waay. Gadcood kii hore wuxuu ahaa Gadcood 1 oo ahaa kan Gadcood 2 la yiraahdaa wiil. nimankanna magac kale la baxeen. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera iyaduna caawa ay qorayso Al-Qassam waxay iyaduna sheegtay inay markaa samaysay durbaba ka hortag howlgal ah. howlgalka ay ugu magac dartay Asa Musa ama ushii Nabi Muuse alayhi salaam iyadoo kaga hortagayso kaga jawaabaysa howlgalka la yiraahdo Arabaad Gadcood 2 la yiraahdo oo markaa Israa'iiliyiintu ay u baxsadeen howlgalka. haddaba hogaamiyaasha Kataa'ibul Qassam mid kamida ayaa wuxuu sheegay in markaa ay sameeyeen saacadihii la soo dhaafay howlgallo waxaana uu sheegay howlgalkan ay wax iskaga caabinayaan in loogu magac daray Asa Musa ama ushii Nabi Muuse alayhi salaam. haddaba waxa uu sheegay inay kaga hortagi doonaan ushaas qabsashada Israa'iil ay doonayso inay ku qabsato Gaza. marka nimankan marka yahuudda waa is yaqaanaan dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin nimankan Nabi Muuse
reer bani israa'iil way yaqaanaan nabi muuse marka ushiisana way yaqaanaan taariikhdiisa iyo fircoon iyo nabi muuse wixii dhex maray yahuudda waa taqaan si fiican ay u yaqaanaan marka luqad ay fahmayaan iyo waxay fahmayaan ayaa marka loo dhigaa marka nimankii saaxiriinta ah nabi muuse in lagu cabsiyo la rabay ee fircoon uu keensaday markay masas meesha dhan ka dhigeen ushii markii uu dhigay wixii oo dhan afkay u dhigatay waa cuntay marka hadda taangiyada dhan waa masaskii waa idinkuna waxaa tihiin fircoon annaguna ushiya haysanaa waa alyaasiinkii markaa taangiyada keentaan alyaasiinka nagtu ka saaraa kulligood wuu cuni doonaa nimankaan wax ka fulaysan male marka caawa dhan waxaa lagu leeyahay warbaahinta israa'iil waxay ka sheekeynayaan casaa muusa nabi muuse ushiisa maxay u doorteen waxay leeyihin iyaga maxay u dooranayaan nabi muuse maxaa ka gala ayagaa mid iska leeyihi nabi muuse midaa wuxuu leeyahy nabi muuse soo ambiyada ilaahay maa nimankaan ambiyada ilahay o dhan waa rumaysayi maxaa dhacay dooda ka socota nimanka cabsida iyadoo dagaalkiiba bilaaban ayaa magaca keliya ay la baxeen waxay la baxeen casaa muusa ushii nabi muuse aala dhahay dheen howlgalkeeda ushii nabi muuse marka waxay ahayd difaaci ahayd mog nimanka masaskii wixii oo dhan markay keeneen ushii marka waa difaacan wixii oo dhan ay laqday marka saasaa idiin laqaynaaniye marka sheeko waalana meesha ka socota hawshu halkaasay baraysaa waayahay qodobka kale ee caawa barnaamijka aynu ku faahfaahinayno wuxuu yahay barnaamijkaygii hore waxaynu ku soo qaadanay saaki in gurigii netanyahu la gubay mudaaharaadayaasha inta tageen dab qabadsiiyeen hareerihiisa oo dhan baabuurtii tiyaalay kulli dab la qabadsiiyey ayagii booliisku qoorta isu galeen oo qaylo ka baxday oo meesha yidhaahdeen gurigaaga marka la gubayo adiga haddii lagu qabto oo lagu jarjaraa layidhi odagii marka caawa isaguna wuxuu u hanjabay dadka mudaaharaadka gurigiisa sameeyey iyo guud ahaan wadooyinka gubaya mudaaharaadayaashu mogtahay way soo adkaatay hawshoodii marka hore waxbay tabeelayaalay dhigi jireen wadooyinkay fafariisan jireen waa la dhegaysa waaye hadda dab a la isqabadsiinaa dabka haddii la dhegaysa waaye hub meelaha inta laga soo qaato yiri mid yahuudi ah hubkii yahuuddaaba haysad nagtaa la iska saari doonaa yiri u fiirsada haddaba marka aan idin tusoo wararkii ugu dambeeyey arrinkaa laga qoray telefishinka aljaziira wuxuu leeyahay netanyahu wuxuu la hadlay mutadaahiriinta ama dadkii mudaaharaadka sameynayay wuxuu ku tilmaamay inay tasarufkooda ama habdhaqankooda uu yahay kuwa la mid ah waxa uu ku tilmaamay faashiyiintii hore haddaba ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu wuxuu sheegay in kuwa xeraya wadooyinka dabka meelaha ku qabanaya oo handadaya inay dilaan isaga waxa uu sheegay inay yihiin faashiyiin waxaana uu sheegay in dibadaha iyo ururo gooni ah ay maalgeliyaan si ay qaanuunka iyo dhibaato uga abuuraan gudaha israa'iil odagii waa cabsada odagii nimanka qaanuunkaala tigsana waa faashiyiin waa kan waa oo ku haya warkiisa yaa ku jira cid dhegaysanaysa male kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni habeennimo waa habeennimo arbacaa khamiis ay soo galayso qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka aynu ku jirnaa haddaba qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa ninkii macron ahaa ayaa wuxuu la soo hadlay netanyahu muxuu ka rabaa wuxuu yidhi inaa imaadaan rabaa israa'iil meeshaan marka waxbay dadka wax falanqaynaya isku xarayaan ogaada idinkuna la socda xalay miyeedna shalay gala barnaamijkan soo daayay in maraykanku u hanjabay barnaamijkii xalay aan malena inuu u hanjabay faransiiska aqoonsiga oo maaragtay maraykanka u hanjabay faransiiska aqoonsiga falastiin hanjabaadu marka ma la yaraysan karo trump hanjabaadiisa caadi ma ah faransiiska inkastoo uu yidhi annaga waa aqoonsanayn haddana wuxuu rabaa inuu israa'iil imaado ka dhacdhiciyo waxaan dowladda waxyarle la aqoonsanaya xoogaa isdejiya iyo waxaas inuu dhahurin marka sebtembar waxaa u ballansan un-ka halkaasuu u socdaa waxay ku ballansan yihiin inay halkaa isku arki doonaan iyaga iyo sacuudiga iyo hawshaa qabanqaabanaya ninka la yidhaahdo macron iyo bin salman iyo raggaas meesha istegi doonaan
falastiin aqoonsigeedii waxaasaa meesha iyagaa hormuudka ah sacuudiga faransiiska hawshaasaa la wadaa. marka sheekadii maraykanka way soo kululaatay. maraykankii toos isagaa ula hadlay macron oo hanjabay. marka macron wuxuu yidhi waa imaanaa. intee imaanaysaa halkan? ma imaan kartid aliyan. marka ay tusoo sheekada dhex martay telefishinka aljazeera wuxuu leeyahay hay-adda wararka u faafisa israa'iil ayaa caawa waxay sheegtay netanyahu inuu diiday dalab uga yimid booqashaha dhanka macron. hay-adda wararku waxay sheegtay in ra-iisul wasaaraha in madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu ka dalbaday booqashada israa'iil inuu ku yimaado. netanyahuna waa diiday waxaana uu ku tilmaamay in waqtigeedu hadda aanu munaasab ahayn. booqashadaas hadda ma imaan kartid aliyan. marka xoogaa culaysaa la saari. dhanka kale waxyaabo kale waxaa jira maanta waxaa la yidhi ninka imaaraadka madaxda u ah madaxweynaha imaaraadka ayaa riyaad tagaa la yidhi sacuudiga ku tegay. sacuudiga ayuu safar deg dega ku tegay isaga iyo bin salmaanki iyaguna meesha isku arkay. marka dadka cilaaqaadka labada dowladood aan ka hadalnay waxaase iyagu soo qorqoreen arrimahaasaan ka sheekaysanay saasay aheeday leeyihiin. laakiin dadka wax falanqaynaya waxay leeyihin maadaama maraykanku isagu toos u galay faransiiska imaaraadkana waxaa loo diray sacuudiga ka joog arrintan. maraykan ma ogola in shirka sebtembar a qabanqaabinaysaan falastiina lagu aqoonsanaa lee isaguna imaaraadka loo diray. imaaraadka shaqaalo halkaasaa loo diray sacuudiga naga aamusiya layidhi. haddii kale tallaabaa ka qaadaynaa cunugaas nagnagta badan. kan macronka annagaa iska dhicinaya. waa kan macronka hadda israa'iil ula hadla leeyahay cunugiina waa lagu maqan yahay. ninkiyaa u tegay madaxweynaha imaaraadka bin zaayid wiilkiisii maxamed bin zaayida halkaa ku maqan. marka waa arki doonaa sida xaalku ku dhammaado. adinkuna fakari aragti waxa haysaan noo soo qora.